بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka caafimaadka Somali News TV studio oo ku leeyahay magaalada Muqdisho magacaygu Cabdiraxmaan Daahir Bitaale waxaad barnaamijka had iyo jeer aan kugu soo gudbinaa mowduucyada caafimaadka ee quseeya bulshada Soomaalida iyo waliba afkaaraadka iyo xaqiiqooyinka caafimaadka la xiriira ee ugu dambeeyay marka laga diyaariyay waxyaabo kala duwan caafimaadka si bulshadu ay markaa qayb uga noqoto wacyiga sareeya ee dhinaca caafimaadka toddobaadkan waxaan barnaamijka caafimaadka daawadayaal inagoo ku guda jirnay xirmooyinkeenii kala duwanaa ee aan kaga hadlaynay faa'iidooyinka khudradda cudurrada kala duwan ee dawladheedka markaasi lagu xalliyo maanta waxaan soo qaadanaynaa mid ka mid ah khudradda sida aadka ah loo isticmaalo Soomaaliduna ay dabcan aad u isticmaasho kaas oo ah geedka ama khudradda la yiraahdo basasha haddaba daawada maxaad ka ogtahay faa'iidooyinka kala duwan ay xambaarsan tahay basashu cudurrada marka la ogaaday ee la daraaseeyay in ay si weyn wax uga taraan isla markaana ay dadka marka ka caawiyaan waxaan nala shooga maadaama ka gaadhay Dr. Maxamed waa Dr. Maxamed Mustafa Mas'ali maamulaha isbitaalka isku daweynta dawladheedka Daarul Dawa Herbal Hospital ee magaalada Muqdisho horay ayuu nagala qayb qaatay barnaamijyo kala duwan doctorku maantana waxa uu nala wadaagayaa faa'iidada uu leeyahay geedka ama khudaarta la yiraahdo basasha Dr. Maxamed Mustafa Mas'ali soo جزاك الله خير الجزاء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله كل جيت كليرة ذو بصشة وجيت منفع عيسى يقاب كيسة كل بادي آد محن كل هذا لينجي قانو دنك محن كل هذا إشيان كآدي آد نوجو بدم أقول يعنس عن تهذبه geedkaasi basasha waxaad moodaa quraanka kariimka dhowr mawaadiic ayuu kaga hadlay oo sidoo kale dadkii maxaan ku yiraahdaa faraacintiina si fiican ay u yaqaaneen nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam waatii ay rabbi subxaanahu wa ta'aala ay kaga baray yani ay kaga codsadeen nabigooda ayagoo maxaan ku yiraahdaa ay leeyihiin waxa dhulka yaalo haleynoogu soo daro ma naqaanay khudaartan kale ee waxaan naqaanaa oo sida basasha naga maqan waxa naga maqan qitha bah la yiraahdo yani waa qajaarki waxa noocaasi waa qajaar iyo cadas bah la yiraahdo oo digirta ah inahaas ayaa naga maqan oo maxaan ku yiraahdaa rabbi subxaanahu wa ta'aala ka dalbanayna watay lahaayeen marka basashu sideeda waxa way geed mufiid oo aad iyo aad u fiican walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga digay ummadiisa oo maxaan ku yiraahdaa ayadoo ceerinkeeda ah ninkii soo cuna waa tuu leeyahay noogu soo dhawaana masaajidka balse marka ka dambe uu arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis oo yani maxaan ku yiraahdaa arrimahaasi oo uu leeyahay ruuxi doonayo basasha aad baad u jeceshin dad yahow basasha ruuxi rabo oo maxaan ku yiraahdaa uusan ka maarmin hadii goor bal ha yani xogaa dabaqeeda ha ku badiyo oo maxaan ku yiraahdaa ha ku zuuliyo urteedaas dabaqa maxaa la yiraahdaa karinteeda in la kariyo karintaas ayaa lagu zuulinaya marka taasina waxaad garan kartaa waxa weeyaan dadkii sina uguma maarmi jirin ilaa waqtiga la joogo waxaad moodaa in oo aan ka maarmin miisaska iyo maxaan ku yiraahdaa jikooyinkaba aan ka maarmin basasha ay u tahay udbadhaad u tahay aad moodaysaa basasha saas oo noocaasi ah waxa weeye fawaa'ideeda markii aan u soo degdego xogaa yar fawaa'id fara badan bay leedahay oo kamid ah macaadin fara badan ku jirta oo kamid ah kabriidka kamid ah kabriid da maqashin waxyaalo wax gubow waay oo macnaha xarqiyo waxa la yiraahdaa afka qaad waxa la yiraahdaa سلفر على هذا سلفر هذا مغشيد وكبريت مواد وحويا محرقة سيدا وكلا وحا كجرا مغنيسيوم ايا كجرا وحا كجرا زنجي ايا كجرا وحا كجرا مادة هذا مغنيسيوم ايا كميدا مركا وحويان وحا كميد تهي غني ايا كتهي لنا عاصل هذا معادنتا سيدا وكلا وحويان بصشا meelo fara badan waxaad moodaa in kaniiniyaasha iyo maxaan ku yiraahdaa dawooyinka la inoo soo sameeyo qaarkooda lagu soo daro ama se lagu soo sameeyo ayaad garan kartaa oo yani wax oo maxaan ku yiraahdaa fiiro kala aadan yeelan waa la qallajiyaa ayada boolbar ah
ayaa lagu soo diraa oo waayo waxa hadda aad maqlaysid gentamiciinka iyo waxaad maqlaysid erythromycinka iyo gibi waxaad moodaa basasha iyo bahasha la yihahdo maxaan ku rahda toonta intaas ayay maxaan ku rahda laga dhigaa waay soo qaad marka tusaale ahaan markaad soo qaadatid waxaa la yidhahdaa u fiirso dawooyinka ahaan basasha marka loo qaato waxa weeyaan streptococcus waa qaybta la yidhahda recoccus waa streptococcus iyo staphylococcus labada nooc waxaa ku jira basasha laga helaa waxaa laga helaa mawaad la yihahdo insulin ama ilein la yidhaahdo waxaa laga helaa basasha laga helaa basasha marka waxa weeye waxay ka mid tahay mawaadda oo vitaminskeeda marka loo kacana oo ku jira vitamin c-ga ayaa ku jira vitaminad kale mehe waa vitamin c waxyaalaha laga helo marka waxaasoo dhan markay isku soo yaro duubtid waxaa garan kartaa in ay tahay basashu shay fawaa'ideeda aad iyo aad u fara badan tahay laakiin in aad isku badin ku dadaal oo waayo waxaad keenaysaa waxa la yihahdo dabxatu sadri amise gastric oo macnaa qaybtiisa koowaad oo kale ad keenaysaa waxaad arkaysaa laabdilaac oo kale inay keenayso waxay keenaysaa markii bahasha waxaa ku jirta zayt taa'ira ayaa ku jirta saliid duusha ayaa ku jirta markaad fiiqdid ood kala dilaacisid waxaa soo duulahaya isla markiiba saliid ayaa soo duulaysa saliiddaas indhaha kaa gelaysa waa aragtay xoogaa yar xaraarad bay leedahay marka labaad urteedaas xoogaa yar dawaq ay leedahay inay ku dawaqiso ayay leedahay saa daraaddeed marka muhim waxaa ah bahashaasi markaa qaadashada aad qaadanaysid in oo sii yara tartiib ah u qaadatid waa hagaag doctor waxaad ka dhawaajisay maadooyin kala duwan oo dabcan cudurro waaweyn oo halisa wax ka qabto oo lagu daweeyo masalan haddaan u nimaano awoodda xalinta dhibaatooyinka ama cudurrada halista ah iyo basasha ma la ogaaday oo daraasaadka ma lagu xaqiijiyey basashu in ay qayb ka qaadanayso in ay la dagaalanto jaribsada halista ah ee jirka biniaadamka soo weeraray bismillah sideeda waxa weeyaan jeermiska noocu noqda waa cunquudata la yidhahda waxyaalaha oo adag oo culus iyo qaybta la yidhahda bacteriyada taan haddaba sheegahay waa qaybaha bacteriyada waa waxaa lagu ogaaday in ay difaaca ay sii kordhiso waxaa la ogaaday basasha in ay leedahay maxaan ku raha firfircooni qofkiisa u leedahay basasha aan ka hadlayna waxa weeye basalay basal tahay ma aha basasha dhudhuubta ah oo cadcadda ah waxaan ka hadlaya waa noocaas oo maxaan ku yidhahdaa oo qaybaha aan kaga hadlaya ah marka noocaasi mar haddii la yidhaahdo waxa weeyaan aad iyo aad bay u fara badan yihiin marka waxa weeyaan daraasadaha la sameey dhan waxay sheegayaan weliba amraadadka amase jirooyinka la yidhaahdo amraada sulla waxa weeye amase tb-da waxyaalaha lagu daweeye ka mid tahay basasha la yidhahdo basasha qofka marka waxa weeye waxaa muhim ah qudaarta uu soo qaatay basal iyo mathalan toon iyo liin dhanaan saddexdaas shay waxay leeyihiin tacajub ahaan bay u samaynayaan oo dhaqaatiirta waxay leeyihiin kayfa yamrid sidee qofku u xanuunsanayaa oo kaasoo haysta basal iyo toon iyo liin dhana haysta saddexdaas shay haysta qofka see u xanuunsanaya marka waxaa weeye tacajub waa la yaabihiin ma la isku darayaa saddex shay marka waxaa weeye waa aad iyo aad waxay ka mid yihiin basasha marka toonta markaa soo qaadid oo jarjartid sidii ka dhigtid karootada oo kale ka dhigtid oo yaryaraysid ood ku dartid liin dhanaan iyo maxaan ku ihahdaa basasha isku darsatid waxa weeyaan waa weerarka jirka ku socdo marka noocu ahaadaba waxa weeye waxaad moodaa in aad iyo aad difaaceedo yani u xoogan yihiin markuwaasi marka saddexdaas shay waa saddex shay muhim ah marka qofka waxa weeyaan waaba lala yaabaya waa xanuunsanahay iyo arrimahaasaan qaataa aad iyo aada loola yaaba marka waxa weeye waa muhiimadaas leedahay basasha insha allah marka nidaamka ka faa'iidaysiga basasha ama isticmaalkeeda marka la yidhaahdo sidee ugu fiican ma in la kariyo ma in la shiilo ma in sidii iyadoo ceerinteedii yani cunadii kale la helayay lagu darsadaa awalan waxa weeyaan waa ceerinkeeda kow waa mar haddaad helaysid ceerinkeeda oo noocan sheegahay ah waa noociyo lafteeda soo qaadato karisi seed u karinaysaa ilen waxaan naqaanaa digsiga markaa soo qaadato maxaan ku gabadha oo maxaan ku rahdaa ku darto saliidii kadibna basasha lagu daro oo lagu gubo taasi xoogaa yar in laga fiicayaan moodaa qeybaha aan rabno caafimaad ahaan inaan kaga helno ilaahay idinkiisa waxaa muhim ah basashaad soo qaadan waa jeexjeexaysa waa isku dara yani si oo mataqaanaa yani feeta ayaad ka dhigaysaa markaad feeta ka dhigtid waxaad saaratay bariiskii iyo maraqii iyo wixii kuu saarnaa dabka markuu kuu bislaado alleele biseel kale uma dhina markii la yihahdo in lagu daro lagu daboolo taasi waxaan sameynaa gabdhaheena macna badanaaba waxay sameeyaan barbarooniga ku sameeyaan taasi barbarooniga ayaa waxay ku sameeyaan intay jagaxa siiyaan
ummata ka dhigaan ay kala baxaan laakiinse basasha ayaa ka muhiimsan in la soo qaado oo la gelgeliyo maxaan ku ihahdaa bariiskii iyo wixii la gelgeliyo waayo waxaa fiixaya oo kasoo buuda isla markii saliidda aan ku tilmaamay saliidda duusho saliiddaas duusho marka muhiimadeeda marka waxaa weeye thaabit ay noqonaysa meesha qabsanaysa kuleelkii ayaa soo uumiga soo bixi uumiga marka soo bixiyana waxaa daboolka kor ka saarnaa isla markii nafaqa wixii watay basha waxay gelaysaa nafaqaday gelaysaa bariiskay gelaysaa maraqay gelaysaa isla markii way gelaysaa laakiin in oo digsigii oo lagu shubo kadibna daboolkii laga qaado oo hawadii ka baxdo kaasi waxa weeyaan fawaaid fara badan ma keenayso insha allah marka haddii dabka laga badiyo soo hoos u dhigmi mayso oo ma yaraanayso soo taan leeyahay maaha dabka waxa weeye waxaan ka digaya soo dabka inuu bato waxaan ka digaya in uu mataqaana karkarki iyo waxaas inuu ku bato soo maaha waxaa la rabaa bahasha in la geliyo oo haddana laga soo saaro macnaha maxaan ku ihahdaa lagu daboolo isla markii lana dejiyo waayo waaba kuu dhamaatay marba haddii aad dejisid oo hawshii ood karkarisid فلله الحمد وكونا ماتي لكن هذيك كركرنتي أتكون بديسيد أو محنكو إلى أتكلم معنا مد جبتيد أو بس قال كده وابل الجواب سيرنا قانا جوش نوع اسمه كده نقول لجارسينا فوائد مالها إن شاء الله. أوكي سيابك لو لقى فايدة سكر ما جفتها إن كرنتي المركل الجاي ماد. كرنتي المركل الجاي ماد ها عنتودا عن صلاتها هاي نوقاتي سيد ما تقنا قدرتي أو كله أو أتجرجرتي أو محنكو عن صلاتي دي قدرسو مسبقك قدرسو قدرسو وحيالات كده من اللي الناس تكون مرتين. مهمة بقارة لهذا إن شاء الله وحوين فوائد فربضان آيات كيسة إن شاء الله أو قلتو كديق إني بابيسو في الفرعوني جيك إني سيسو إني بابيسو محيالا محنكو هذا وحيالا الرطوبات كأ محنكو هذا اللابتان محنكو هذا عبد الله كل كينا هيو لكن هذا اسكو برسيد رطوبات ويكن تاكو بهاشة أو اللي هذا سلك وين له سان هرب قلت المام وحوين رضيئة اللي هذا وعرستها قاب مالها ولي بوحة اللي هذا وحلاقة هذا كثرة النسيان قف إلا شاف رابطا له أيوك قاعدة هي مركي أو يكفي حدا هذه قار معناها أيكون بحض بهاشة سي مركي واحد مهم بهاشة إن لقاته نوع يعني شيء هيوعة روب تاسي أو دبضا روبان كورن كروبان أو عدان كاسي مهمة داس وين بلاد إن شاء الله أو محنكون فوائد يعني وزن كم لقاها مع مداس آدي أنا غبضنا هاي ولقاها لا سيف عن بس العادي سوق بكاردي لا تجو يحمر وين سيف عن لوجها بس العادين ولا يغنى سومالي سيف عن التقانا مركب حوي مهمة داس جاركة أي اللي هدي لهاد مواقف عن لو فيليه مثلا دكتور وحيابها أي كسر سنة بششة مركب فيرنو dadka xasaasiyada ku qabo kala toon ana waxyaabo ku jiraan basasha maadooyin mesela dadka dhibaya macnaha waxa weey waxay ka samaystay mawaad aan sheegay aylin alirada ama insulinkan waad garanaysaa sokortay hoos u dhigtaa waa mar bahasha la kabyo waayo oo isaarsaaran tahayna waxa weey lakab kastaba lakabka ku xigana waxa ku jira mawaad leeyaado lazuja ama dhareer ayaa ku jira oo dhegdheg leh dhegdhegaasi marka taas qaadid dhegdheg isla markii waa baaba'aya maxaan ku rawa tagaya dhegdhegaasina waxa lagu tilmaamaa waliba in uu u roon yahay mafaasiisha kala goosyada ay aad iyo aad ugu roon tahay marka waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha oo mataqaanaa oo aadka oo fawaaida faraha badan leh ay ka mid tahay insha Allah waaye maxaad bulshada markaa gabagabadaan ka soo gaarnay barnaamijka caafimaadka oo maanta aan uga hadlayno faa'iidada basasha ay leedahay يعني dadka dabcan sida caadiga ah nolol-maalmeedka bulshada basasha aad bay u isticmaalaan min magaalo ilaa iyo tuulo iyo degmo wax cusub maaha laakiin waxa cusub ayaa waxay tahay sida ay faa'iido u leedahay iyo qaabka aan uga faa'iideysano maaragtay looga manaaficaadsan karo marka fikrad talada aad bulshada uga tagayso bismillah basasha waxa weeyaan fawaa'ideeda inaad ogaatid kaliya ayaa muhiim ah mooye aqoon ahaan basalay maxay tahay iyo nooceeda yani la isaga sheekaymayo suuqiyo la tagay iyo noociisa kulli waa laga faa'iideyn karaa waa la yaqaana marka muhiimad waxa leh kaliya فوائد أو كتشة عن شيء أو له معناها مغنيسيوم محو ترى مكان لنا هاي وحاول ديق السلاح كله فالقلات في النساء مركل اللي هذا باش اللي يعني أيدينكا أم يسمى معناها يودذا محيق الشامكة هذا وكلا وحيالها أصلاً وحاول حكمة دين وحيالها إلهي الحديقة كمتاي بس عشان مركل وحاول فوائد هذا فوائد لسكوبي كلام معها مهم وحاول مركل قفك أو محنكل هذا قاطع عيرينكيدا oo kala qaata oo waxa muhiim ah oon far badan inuu dareemayo oonkaas faraha badan leh
kow labo shiir badan inuu dareemayo oo yani afkii uu kasoo yani fiixaysa muhiimad marka waxaa la geedka la yidhahdo shumaarka waa geed oo u eg bahalka la yihahda caynison iyo shumaar iyo bahalka la yihahda maxaan ku rahdaa xawaashi oo dhudhuubka isu keen mid waayo xawaashkaas dhudhuubka inta soo qaato qofka ayuu afka ku shubanayaa afka markuu ku shubto isla markii waxaa weye sida oo xanjada la yihahdo aabi qorfaha iyo heelka oo kale ayay u baabi'inaysaa marka waxaa weeyaan inuu noocaas u baabi'iyo ayaa muhiimadaas laga rabaa marka ilaahay idinkiisa muhiimadaas inay leedahay waxa weeyaan wixii aad tiqiinay haddii wax lagugu daro waxa weeye fawaa'id laga helay waayo marka waxa weeye faa'iido dheeraad ah ayaad helaysaa insha allah marka ilaahay idinkiisa taas aan ku dadaalno wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam aad iyo aad ayuu umahadsan yahay daawadayaalkaas wuxuu ahaa dr maxamed mustaf macsari oo markaa nooga warramayay faa'iidada ay leedahay isticmaalka basasha oo ka mid ah khudradda sida aadka ah dadku ay u isticmaalaan tan iyo kulanti dambe intaan barnaamijkan lamid ah hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu